mada dambiga iyo miisaankiisa waxa uu yahay ayada taqaana taasna waxa laga doonaa culimada laga doogaya ilaahay maadiisa ragii hore ahaay waxa uu fasirayay aayadan walladii qaddara fahada walladii akhraja walladii qaddara fahada kaliya ayuu fasirayay waxa laga yaabaa dadka bacdu naas inay maartay mutacassibiin iska yihiin oo hada laakiin alxamdulillah waxa weeye anagu waxaan u tacasubaynaa waxay tahay dadka ahlul xaqa oo wanaagsan u tacasubaynaa وانا dadkii hadda anagu alxamdulillah ta'ala alxamdulillah Soomaaliya bacdigeed ama aksar keedu wax badan ay ku abtirsadaan oo hadda waxa weeye duruqda suufiyada oo ka jirta Soomaaliya oo ahlul xaqiiqada ay ku abtirsadaan sheekhaas wuxuu ahay Sayyid Ahmed bin Idriiso ahay oo mufassir weyn ahay walladii qadara fahada ayu saddex maalmood loo imay casrka salaada markii la dukado kutubtiisa tantu waa la haayaa ma ogtahay cilmiga iyo taariikhda waa la haayaa waxda anagu aan meerta iska abuura karna maahan hayla qofku waxa weeye waxa uu sheegayo inay meel ku sanad ku tiirsan yihiin la rabaa saacoof culimada inuu ra'yi ka hadlo maahan oo asugu uu leeyahay ilaa inuu ra'yigaas kala oo waafaqi kara maahe marka asrka la iimaanay markii la yimaado walladii qaddara fahada bislahu fasiray marka hadii la soo noqdo qoraxda ka dhacaysa waa laga tagay hadana biriya la soo noqonay meeshii halka aayadu taagan yahay macnihii oo ku fasiray shalayne ilaa ma ku fasira hal xabo oo kale ka soo laabanayo macna cusub sheega saddex maalmood markii la joogay markaas ayaa maartay waa la daalahay ma ogtahay inka soo dadkii macnaheedu ay ku sii socdaan markaas wuxuu dhahay maartay nakhruju min al-bahri ila saaxil oo dhahay badan ka baxayna oo dhahay markaas aan xeebta tagayna oo dhahay maxay quraanki waxa weeye bad waay ma ogtahay bad wuxuu ku shabahay waxa weeye quraanku bad waay haddana waxa laga yaabaa qaar inay yiraahdaan war suufigaas wuxuu ogaay u leeyahay waxba uusan ka aqoonin runtii suufigu waxa uu ogaay asaga kaliya runtii laakiin qof aan aqoon u lahayn dhibaatadiisa uu leeyahay ogta Soomaalidu waxa qaacida iska almaru aduun lima jahila qofku waxa weeye wuxuu ka jaahiliya cadow ku yahay mana fahmaayo waxa la rabaa horta marka hore waxa inaad fahamto oo ku dadaasho inaad fahamto marka hadda waxa way markaas marna wuxuu dhahay law wuxuu dhahay maartay law qultu yow dhahay oo law fasirtu daan macnaha eraydi aan iska carabiyeyno ma labisa nuux maartay fi qawmihi la qultu ayu dhahay la qultu ghayra alladhi fasirtu waawray macnuhu waxa weeye hadii aan maartay law labisto yow dhahay ma labisa qawmun ma labisa nuuh biqawmihi yow dhahay nabiyullaahi nuuh intuu qoonkiisa dhex joogay hadaan fasir lahay walladii qaddara fahada macna cusub leeyahay keen lahay yow dhahay taasiyadana waa qayb kale moogta riwaayad kale waa dhika saas wuxuu aqraayo wuxuu fasiraayay hadda waxa weeye suufi u ahay dariiqada Soomaaliya taala ayaana loo nisba sheegtaa oo dad badan hadda alxamdulillah anaga naga mid ay u nisba sheegtaa inta kalena sidaas oo kala waay ee macnaha ma ahaynin sida bacdu naas ay u fahmayaan ana hadda cidna aan u la jeedin laakiin in wax uu dadka la fahamsiiyay naga tahay sida bacdu naas ay wax u fahmayaan oo aan ayagu waxba xaqiiqo aan haysanin dadkaas oo wax laga sheegane waxa laga helaa soo khaatima laga helaya sababtoo qof sidaas oo ilaahay cinaayada ilaahay haysto oo saasa hadaad maanta caayayso
ama wax ka sheegayso dhibaatada iska leedahay waxa oo la ogyahay waa arintaas ilaahay naga koriyo inaan dadka saalixiinta ilaahay awliyadiisa inaan cayno waa nasiib darra ilaahay naga koriyo taas waa inaan ka gaabsana arintaas marka hada intaas oo maartay usaas leeyahay intaas nabi nuuxna intuu qoonkiisa ku leeyahay waa ogtiino waati ilaahay quraanka buu ku sheegay iska caddo falabisa fihim 1000 sanatin illa 50 aaman faaqadahum ad-dufan wa hum zalimun marka waxa weeye maartay waxa uu ku nagay markaasi maartay 1000 sano oo konton la waa 950 sano waay 950 sano oo markaasi intii uu ka dambeeyay bacda duufaan uu joogane muddo uu joogay ay ku jirto iyo markii nabinimada loo soo bixinaayeen intaasna ay ka sii baxsan tahay waxa way intii nabinimada loo soo bixinaayeen waa ka baxsan tahay بعد ما قونكيسي لهلاغي انت وجوغنا waa ka baxsantahay inta markaasi dacwada u waday ayaa waxay tahay 950 sano ah ila naska quraanka ay ku cadeey moogtahay wax la iska cabirayo ma hadana sheekhan wuxuu leeyahay walladii qadara fahada hadaan fasiri lahay waana runtiisa ila waa la tijaabshay moogtahay anaga hal aayadana waxba ku istaagi karine hadii markaasi oo intaas oo maaratay oo mar walba uu keenayo macna cusub dadkii waa ka caajisayaan marka inuu saas og yahay ilaahay cinaayada ilaahay oo qabo oo maaratay cinaayatullaahi aqnad an mudaafatin min ad-duruu'i wa an aalin wa an udum wa tawreemogtay al-busiri ahlul cinaayad ay ahayn dadkaas dad ilaahay culumta u furay ahaayeen dad wax laga sheega ma ahan dad waxa weeye lagu dayda loona duceeyo waaye oo waxa weeye badbaadada ummatul muhammad ayay markaasay kaalinta koobaad uga jiraan hadii fi zamanihim laga soo bilaabo qof walba waxa weeye casrigiisa uu joogo ayaa markaas wax ku yahay oo qof waa maaratay waxiidu zaman iska ah marka hadda qofkaas qof lamida ma jirin la leeyahay waxa weeye zamankiisa waa markii la fiirsho wax lamida waa ka wax ka cilmi badan wax ka karaamo badan ayaa ka horeeyay ama dhici karta hatta inay ka dambeeyaan hatta dhici karta hada ilaahi subhanahu wa ta'ala fadligiisu waa badan yahay marka dadkii sidaas ahay waxay naga mudan yihiin inaan u duceeyno inaan i'tiraafno inaan dariiqoodii iyo suluugoodii aan ilaalino si maaragtay ummadu zamanka soo joogto maaragtay u badbaado waxaan meeshaas aan ka soo tagno waxa way waxa